saaka waxaan rabnaa inaan dib u dhisno dhulkan mana naga aha wixii maxaa la jiray qolada oo showga dhigta igu sawir ma naga aha dhabay naga tahay dhagax been inta meel dhigna kama tagnaa anagu waxaan qabanaynaa wax la taaban kara waay umalihiin dhaqan iyo heredity midna inaan been sheegno been mujtamaca ku hogaamiyo mujtamaca waxaan ku hogaami doonaa run waxaan ku soo hogaami jirnay run waxaan dib u dhisaynaa halkan xagee laga keenayaa fanka waay fanka jeebabka reer hiiraana laga keenayaa lacagtu jeebabka reer hiiraanay ku jirtaa waa iskaa wax u qabso sida aan horeyba idinku sheegay inaan iskaa wax u qabso ku dhisnay haddana waxaan ku dhisi doonaa iskaa wax u qabso guryahan bangaariyada kan boostadu ahaa marka boostada laga yimaado intaa kale waxaan ku dhisnay iskaa wax u qabso haddana waxaan ku dhisi doonaa iskaa wax u qabso hadday military tahay hadday shacab tahay hadday dhallinyaro tahay hadday ganacsato all iskaa wax u qabso ayaan ku dhisi doonaa haddii alla mana noqon doonto mar labaadaan carabkayga ku adkaynayaaye wixii showga ahaa ee ragga aad garanaysaan inta dhigaan oo igu sawirta ahaa eeg fatahaada soo baxda ayaan dhaweyd biyahaan dhex tegaynaa hale war biyahayna dhex geynine biyaha ha la soo sawiro annana waxaan dhihi rabna aan idhahdo maya waa la gelayaa intaasaa biyana loo geliyey waxaan la yaabay ahayd sababta biyaha naloo dhex gelinay waa igu sawir macno ma samaysa igu sawir wax la taaban kara ayaa loo baahan yahay saas loo tuuji karo annaga wax la taaban karaan ka shaqaynaynaa waxaan dib u dhisaynaa xaruntii hiiraan state haddii alla ayaan dib u dhisaynaa waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degan ama maxaan ku iraadayay jecel horumarka in ay ka qayb qaataan codsiga iyo fariinta waa u direynaa haddii ilaahay idmana waa ka soo dhalaali doonaa doorka aan leenahay iyo mas'uuliyadda aan leenahay waa ka soo dhalaalaynaa waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu laabto madaxweyne Sheekh Shariif ayaa wuxuu saxiixay degmooyin dalku leeyahay iyo gobollo ka mid ah waxa kala wareegay madaxweyne ninka la yiraahdo Xasan Sheekh xilkii uu kala wareegay oo tirsaday waa sharci kula wareegay wixii madaxweyne Sheekh Shariif uu saxiixayna sharci maaha waxay u baahan tahay fasiraad dheeri u baahan fasiraaday u baahan tahay gobolka Hiiraan laba gobol uu ka dhigay Boolo Bardana gobol uu ka dhigay Beledweynena gobol uu ka dhigay Shabeellada Sare iyo Hiiraan uu kala bixiyay waan haynaa digreetadeedii ayadaana taxraacayna kuna dhaqmi doonaa haddii alla ay magaalada Muqdisho 16 degmay ahayd hadda waa 17 degmo waxaana ka dhigay madaxweyne Sheekh Shariif waa sharci midaana sharci maaha ya nas inuu saaraa laga rabaa madaxweyne Xasan Sheekh arintaas political baa loo diidan yahay qaanuuniyan loo diidana siyaasiyan loo diidan yahay war waxaan idin leenahay markiina lagu xisaabtami jiray waanu ka baxnay hadda inaan xisaabtanaan diyaaruna dhigihiinana fura maskaxdiina dib u galiya ritiriid ku sameeya maskaxdiina dadkani way fakareen waana tashteen cidna ma dulmayaan waxa qaanuunku u ogolaanayeen bay ku dhaqmayaan qaanuunku wuxuu u ogolaanayeen ayuun bay ku dhaqmay doonaa haddii alla qaanuunka kuma qorna madaxweynuhu hebel ninka la yiraahdo wuxuu saxiixo sharci maaha hebel wuxuu saxiixaana waa sharci qaanuunka meel uga ma taal 60 iyo ka dhacaysa dadkaan consent qabeen ilaahayna consent-kii uu ka saaray saaka waxaan diyaar u nahay inaanu meel marina haddii alla dhimbil daba haday ka kulushahay inaan meel marina diyaar u nahay aad iyo aad ma